السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آديت بن السلام يا أصحابتنا وحنا كسدو مقال عصب. مقالكن wuxuu ku saabsan yahay sidee go'aan u qaadan kartaa. Go'aan hadaa qaadanaysid ha noqdo mid noloshaada bedeli kara ee yuusan noqonin mid aad iska tiri oo faham micnaha nolosha iyo go'aanadeeda. Maalinta aad go'aan qaadatid ha noqoto maalinta aad isbedel joogto ah la imaan kartid. Noloshaadii horena wax ka bedeli kartid. Markaad sidee go'aan u qaadan kartaa kaliya waxaa samaysaa inaad daacaduna u ahaato naftaada iyo noloshaadaba. Go'aanka aad qaadanaysid ha noqdo mid adiga ka yimiday ee yuusan noqon mid dadka kale ka yimiday. Noloshu waxay macaan tahay markaa ku socotid go'aankaaga. Marka aad qabanaysid waxaad adigu u baahantahay waxaad dareemaysaa xorriyad iyo inaad tahay qof go'aan leh. Kaliya samirka iyo dadaal uun ku dar noloshaada. Markasta Ilaahayna tala saaro adiga ayaa arki doona isbedelka dhabta ah. Midna weligaa ha samayn waxa aad go'aan ka qaadatay marnaba dib ha ugu laaban. Midaas waxay ku tusaysaa inaadan go'aan lahayn. Ogowna markastoo dib u laabatid waxay ka turjumaysaa inaadan go'aan qaadan karin. Intaas ayuu muuqaalkeenu ugu eegyahay. Aad iyo aad buu mahadsantahay asxaabtana ku xidhan. Inta muuqaalka ku kulmi doono waxaan leeyahay aad iyo aad baan salaamaya.